الله الرحمن الرحيم maanta sida u jeedeenba xarunta degmada warta nabadda ayaan u nimid inaan ku qabsano shirkeena caadiga ahaa gudoomiyaasha degmooyinka iyo maamulka gobolka Banaadirba ujeedada halka u nimid waxay tahay inaan shacabka u dhawaano bulshada Soomaaliyeedna aan tusno in shirka noocan oo kala uu ka dhici karo degmooyinka oo dhan isla markaana aan aad diiradda ugu saarnay arrimaha halbowlaha u ah horumarinta caasimadda oo ay ka mid tahay barnaamijka isxilqaan iyo heerarka uu marayo waad aragteen istaadi muqdisho sida runtii ay ahayd iyo sida maanta ay tahay dadaalkaasna uga mahadcelinayno maamulka gobolka Banaadir gaar ahaan degmada warta nabadda oo runtii iyo maamulkaba oo aad uga shaqeeyay sidii loo habeeyay istaadi muqdisho waxa kale oo iyadana la socotaan madxafkii iyo tiyaatarka iyo howlaha isxilqaanka guud ee magaalada ka socdo ololihii nadaafadda sidii loo dardargelin lahaa oo aan degmooyin ku tijaabinay tartan lagu siiyey haddana ay muuqato 80% in ololihii nadaafadda si wanaagsan u socdo waxaan kaloo iyadana aad uga hadalnay arrimaha bulaacadaha oo runtii aan sameynay daraasad dhammaystiran oo in muddo aan soo wadnay oo aan rabno magaaladan bulaacadaheeda dambe in loo helo xal waara oo dhammaystiran iyadana bangiga adduunka ayaa nagala shaqaynaya daraasadii la soo dhammaystirayna waxaan rajaynaynaa sanadka soo socday sanadka ku xigaba in la dhammaystiri doono haddana aan bilownay bulaacaddii Tumbuluq iyo Xamarweyne ilaa iyo Xamar Jajab in dayactir ballaaran lagu sameeyey isla markaana aan rajaynayn roobka soo socda inaysan saameyn ku yeelan doonin tii kaloo number 4 iyadana biyihii laga dhuuqay haddana aan rajaynayn in la ballaariyo ujeeddadeenna waxay tahay roobabka markay yimaadaan saameynta ay shacabka ku yeelanaysa inay yaraato in magaalada waddooyinkii dhismaha socday laamiyadii la sii dardargeliyo oo aan ayagana rajaynayno in qorshahaas isagana sanadka cusub bilaaban doono waxaan kaloo isxasuusinay sanadkan waxqabadkii gobolka Banaadir uu qabtay in bulshada ayagana loo soo bandhigo si loo ogaado horumarka maalin walba uu ku tallaabsanayo oo shalay ugu dambeysay wasiirkii arrimaha dibadda ku-xigeenka oo aan ku soo dhaweynay caasimadda oo aan tusnay magaaladan iyo sidii qadiimku u ahaan jirtay iyo hodantinimada taariikhda muqdisho ujeeddadeena ay tahay caasimadda sidii ula tartami lahayd caasimadaha adduunka waxaan rajaynaynaa annagoo aad ugu mahadcelinayno bahda saxaafadda iyo shacabka Soomaaliyeed runtii magaaladan muqdisho ah shacab midnimo iyo wadajir iyo horumar mar walba u taagan inaan dhammaanteen ka wada shaqayn doono horumarkaas caasimadda oo ah mas'uuliyadda naloo dhiibtay marka aad iyo aad u mahadsantihiin waxaan aad ugu mahadcelinayaa marwo Zaynab gudoomiyaha warta nabadda iyo maamulkeeda iyo shacabka warta nabadda oo sida quruxda badan maanta halkan qada sharafna noogu sameeyey shirkii gudoomiyaasha degmooyinka iyo maamulka gobolkana halkan ku qabsanay